Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada Caalami 24 baaraadkeena waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda habsida Itoobiya oo cirkas ku sii shareeraysa kadib garab istaag xooggan oo dowladda Soomaaliya ay u heshay arrimaha difaaca badda. Turkiga oo ku dhawaaqay madax-bannaanida iyo midnimada Soomaaliya inuu difaaci doono. Garab istaagga Masar iyo Turkiga ay u sameeyeen dowladda Soomaaliya muxuu ka bedeli doonaa damaca dowladda Itoobiya ee ku aadan qaadashada iyo sheegashada biyaha badda Soomaaliya. Wuxuu qorshaha dowladda Mareykanka ee wadda ay doonaysa inay ku dhexdhexayso Soomaaliya iyo Itoobiya. Daawade ku soo dhaw Caalami Media haddii aad nagu cusubtay YouTube-ka subscribe noo saar dad hore noola joogteen fiidiyoga noo share gare. Aan ku bilownay dowladda Turkiga ayaa garab istaag xooggan u muujisay Soomaaliya mar kale kadib markii dhawaan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga heshiis militari ay ku kala saxiixdeen waddankaasi Turkiga. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo booqasho maalmaha ku joogay dalkaasi Turkiga ayaa heshiis militari wuxuu la saxiixday dhiggiisa dalka Turkiga kaas oo ku aadanaa difaaca Soomaaliya iyo si la mid ah kaalmaynta ciidanka militariga dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa meel fagaara ah oo ku taal dalka Masar ka sheegay inay difaaci doonaan madax-bannaanida iyo midnimada saddex dowladood oo Soomaaliya ka mid tahay. Dowladahaas oo kale ah Soomaaliya, Suudaan iyo Liibiya. Liibiya hore ayaa loo ogaan dowladda Turkiga ay u garab istaagtay taas oo ka difaacday generaalka howlgabka ee kacdoon-wadaha Khalifa Haftar oo la sheegay inay taageerayeen Masar, Imaaraadka iyo si la mid ah dowladda Ruushka. Masar dhankeeda hore ayay ugu dhawaaqdeen Soomaaliya ay si buuxda uga garab istaagi doonto haddii ay timaado in Itoobiya ay ku duusho qaybo ka mid ah biyaha badda Soomaaliya. Itoobiya oo ku andacoonaysa in heshiis ay la gashay maamulka Somaliland kaasoo la xiriira inay hesho biyo badeed oo biyaha badda Casi ka helayso gaar ahaan gobolka Awdal ayaa waxaa si toos uga hor yimid dowladda Soomaaliya oo arrimaha diblomaasiyadda adeegsanaysa iyo sharciyada caalamka. Dowladda Itoobiya markii ay awoodi weysay inay hesho biyaha badda Soomaaliya ayna qaadato ayaa dhankeeda waxay raadisay inay wadahadal la gasho dowladda Soomaaliya. Waxaase Soomaaliya ay ku xirtay shuruudo la xiriirta in dowladda Itoobiya marka hore ay ka laabato safgaradka ay la gashay maamulka Somaliland. Itoobiya oo ka fogaanaysa in eedo sharciya oo rasmi ah ku imaan kara haddii ay iyadu qirato inay qalad gashay haddana ka laabanayso ayaa waxay raadinaysaa waddo kale iyadoo aan ka laaban safgaradkii Somaliland ay la gashay in dowladda Soomaaliya wadahadal ay kula yeelato. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga waddanka Masar ayaana ka dhawaajiyay hadalkaasi ah inay difaaci doonaan midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya. Waxaana la filayay in hadalkaasi uu dowladda Itoobiya ku noqon doono arrin kale oo aad u culus oo ka hor istaagi doonta damaceeda ay ku damacsan tahay in biyaha Soomaaliya si awood ay ku muquuniso kuna hesho. Garab istaagga Soomaaliya ka heshay dowladaha Masar oo Itoobiya dhankeeda khilaaf uu kala dhexeeyo iyo dowladda Turkiga ee walaalahanahay ayaana waxay noqonaysaa culayskii ugu xoogganaa oo Itoobiya suurtagelin kara inayna ku dhiiran helidda biyo Soomaaliya ay ka hesho. Damaca Itoobiya oo dhan kale u weecda ayaa la filayaa inuu soo degdegi doono kadib garab istaaggaasi dowladahan walaalahanahay ay dowladda Soomaaliya u muujiyeen. dhan kale dowladda Mareykanka ayaa la sheegay inay waddo qorshe ay ku dhexdhexaadinayso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Hase ahaatee dowladda Soomaaliya oo weli taagan in Itoobiya marka koowaad ay caddayso mowqifkeeda ku aadan inay ka laabatay safgaradkii ay Somaliland la gashay ayaa weli hortaagan wadahadalkaasi inuu dhaco. Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ahna hadda kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ayaa dowladda Mareykanka ku qalqaalinaysa inay wadahadal toos ah la galaan maamulka Itoobiya. Waxaana dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanaysaa markasta mowqifkeeda la xiriira inayna Itoobiya la hadli doonin inta ay ka laabanayso safgaradkii ay Somaliland la gashay. Dowladda Soomaaliya markii hore Itoobiya kaga garab saraysay dhanka diblomaasiyadda iyo adeegsiga sharciyada caalamka ayaa hadda waxay helaysaa garab militari oo la isku halayn karo kaasoo ka imaanaya dowladaha Turkiga iyo dalka Masar taasoo Itoobiya la rajaynayo inay ku qasbi doonto in mowqifkeeda guud ahaan ay ka laabato. Haddii Itoobiya mowqifkeeda Soomaaliya in badka hesha ay ka laabato meesha kale ay xoogga saarayso ayaa la isweydiinayaa maadaama ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dhowr mar ku celiyay in laga maarmaan ay tahay in biyo badeed ay helaan gaar ahaan badda Cas ay ka helaan. Daawadayaal intaas ayaynu qodobkeena uga hadlaynay cabsida Itoobiya ku aadan garab istaagga Soomaaliya ka hesha Turkiga iyo Masar aan ku soo afmeerayna.